بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maalin dhexdii ahayd baa waxaa dhacday saad u ogtihiinba dadka Soomaaliyeed ee wadanka soo galay runtii dacwo badanna way keeneen oo dadkii gaalada ahaa way muslimiyeen, dad inaga madihiina way gaaloobeen. marka waxaan arkay aduu dhowr toddobaad ka hor aanu maahay aduu 3 toddobaad inay ay dhan tahay yaa wiil yar oo ku qiyaasayo ilaa iyo 18 jir ama 19 mid u ahaa yaa iigu yimid meel muxuu ahaayay aan joognay buu iigu yimid. wiilal kale ayuu la socday. waxay ii sheegeen maadaama ay i garteen inaan ahay nin culimo ah baa waxay dhaheen wiilkan kadib wuu gaaloobay. mar sii fogna mawsal imanima badanka wuu ku yar cusbaa ilaa adigu ugu badnaan saan qiyaasayo ilaa 5 sano 6 sano ayuu joogaa. wiilkii wuu gaaloobay. marka waxaan doonaynaa wiilkii uu soo noqday tawxiidka inaad u qabato. wiilkii baan warsaday. marka wiilkii wuxuu ii sheegay inuu arkay inuu kristaanku u yahay shay xaq ah, kitaab badan oo muxuu ahaayay bible badanna uu aqriyay, sidaa darteed inuu xaq yahay buu arkay. markay arkeen inuu wiilku active yahayna waxay ka dhigeen leader bay wiilkii ka dhigeen. wiilkii wuxuu noqday daaci. wuxuu yidhi kaniisad baan tegay aniga oo dadkii wacdinaya oo u sharxaya muxuu ahaayay nabi ciise jesus ayagu ay u yaqaaniin. yaa waxaan maqlay buu anoo taagan halkii adin baan maqlay buu dhegtayda ayuu ku soo dhacay adinkiibaa marka yaan mikrofoonkii iska fogeeyey. waxay i weydiiyeen maxaa kugu dhacay. waxaan idhi waxbaa jira. waan ku noqday dacwadii iyo muxuu ahaayay wacdigaygii. wuxuu ii sheegay maalintaa laga bilaabo inaan musqul gala mooyeen haddaan socdo iyo haddaan hurdo iyo haddii kaleba adinku dhegtayda ayuu saaran yahay. waxaan gartay buu yidhi in wax weyni meesha jiro. dib baan u fikiray buu yidhi, diintaydii baan rabaa inaan u soo noqdo. sidaa darteed waxaan ogaaday sheega xaqii inuu diinta yahay, anigana wax layla rabo, wanaag layla rabo. marka wuxuu yidhi waan soo noqday, tawxiidka in lay qabta ayaan doonayaa. sidii baan wiilkii tawxiidka ugu qabanay. muxuu ahaa islaamnimadiisiina kolkii dambe way hagaagtay. si fiican buu dib ugu soo noqday, weliba isagoo ooyaya oo wixii uu soo maray aad iyo aad uga nidaamaysan. marka waxaan odhan lahaa dadka Soomaaliyeed muxuu ahaayay carruurta yaryar ee meesha la keenay ha lala socdo, ha la ogaado arrinta ayada waa arrin muhiim ah. assalaamu calaykum waraxmatullah.